Asbuucan gudihiisa saddex dhacdo oo waaweyn oo saameyn siyaasadeed caalamka ku yeelatay ayaa ka dhacday qaaradda Afrika. Burkina Faso, Mareykanka ayaa saaraya cunaqabatayn cusub oo dhanka mas'uuliyiinta iyo socdaalka ah kadib caawimaadii caafimaadka ee ku kicisay 147 milyan ee Burkina Faso loogu talagalay, taas oo markii dambe keentay khilaaf kala duwan kadib markii Burkina Faso ay ka muujisay dhibaato weyn oo ku aadan lacagtan caawimaadda ah ee 147 milyan ah ee Mareykanku uu sheegay inuu dhanka caafimaadka kaga saacidayo dalka Burkina Faso. Burkina Faso waxa ay muujisay korriin dhaqaale oo gaaraya 5.3% iyo wax soo saarka dahabka oo gaaray 94 ton. Tanzania, madaxweynaha dalkaasi Samia Suluhu Hassan ayaa gaartay magaalada Moscow ee dalka Ruushka booqashadii ugu horeysay tan iyo 1969 iyadoo isla markaana heshiis tareen oo gaaraya isla markaana ku kacaya 2.7 bilyan oo dollar kaas oo uu siinayo dalka Shiinaha. Warbixintan waxaynu ku falanqeynaynaa sida qaaradda Afrika ay uga baxayso gunnimada iyo sida oo kale caawimaadda reer galbeedku ay la doonayaan inay ku duleystaan dalal badan oo ku yaala qaaraddan, iyadoo markaasi ka doorbidayaan dalal badani inay markaasi helaan madax bannaani awood ay u leeyihiin in markaasi ay dhihi karaan maya. Wararku waxay sheegayaan in Mareykanku cunaqabatayn markaasi la doonayay in la saaro Burkina Faso kadib markii halkaasi uu ka yimid khilaaf ku aadan lacag 147 milyan oo dollar ah oo Mareykanku sheegay inuu siinayo dalka Burkina Faso. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay kaalmadan caafimaad oo gaaraysa 147 milyan oo dollar oo la sheegay in Mareykanku uu siinayo Burkina Faso ma aysan ahayn lacag toos ah oo Mareykanku uu dhiibayo, balse waxa ay ahayd lacag heshiis ay ku yihiin labada dal oo noqon karta marka dhinaca kale loo fiiriyo dayn amaba qandaraas gaar ah oo afgarad ah kaasoo gaaraya 5 sano. Bishii Febraayo sanadkan aynu ku guda jirno ee 2026, Mareykanka iyo Burkina Faso waxay kala saxiixdeen heshiis 5 sano ah oo dhanka caafimaadka ah kaasoo qiimihiisu ku kacayo 147 milyan oo dollar. Heshiiskan waxaa loogu talagalay baa la yiri in lagula dagaalamo cudurrada waaweyn sida HIV, AIDS-ka, duumada iyo cudurrada faafa. Lacagtaas beddelkeeda Burkina Faso waxay heshiiskaasi ku dareysay 107 milyan oo dollar oo lacagteeda ah. Mareykankuna ma uusan siinin lacagtaas Burkina Faso si toos ah, balse heshiiskani waxa uu ahaa mid loogu talagalay qandaraas qaadanaya muddo 5 sano ah. Haddaba maxaa dhacay kadib 4 bilood kadib markii heshiisku uu dhacay? Cadaadis ka yimid Mareykanka, xubno ka tirsan gaar ahaan xubnaha dowladda ka tirsan ee Mareykanka sida xildhibaano iyo senataro ayaa soo jeediyay in cunaqabatayn toos ah lagu soo rogo mas'uuliyiin gooni ah oo ka tirsan Burkina Faso. Arrintani waxa ay ka dhalatay markaasi sida ay hadalka u dhigeen eedo dhanka xaq dhowrka aadanaha ah iyo xiriirka Burkina Faso ay la leedahay Ruushka, taas oo doonayo in Mareykanku uu joojiyo. Siyaasaddii ka dhalatay arrintaasina waxa ay sababtay in madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré uu qaato go'aan toos ah oo ah inuusan marnaba u baahnayn lacagta Mareykanka, isla markaana cunaqabataynta ay markaasi doonayaan Mareykanku inay saaraan Burkina Faso ay tahay hadaf kale oo ay ku doonayaan siyaasadda Ruushka, isla markaana ay ku faragelinayaan siyaasadda galbeedka Afrika gaar ahaan Burkina Faso. Balse dalka Zimbabwe oo ka mid ahaa dalalkii Mareykanku ugu talagalay inuu kaalmadan gaarsiiyo, isla markaana la gaarsiinayay kaalmo gaaraysa 367 milyan oo dollar oo dhanka caafimaadka ah oo Mareykanku uu siinayay dalka Zimbabwe, ayaa dalkaasi iska diiday isla markaana waxa uu sheegay inuusan u baahnayn lacagta isla markaana uu dhowranayo madax bannaanidiisa. Burkina Faso waxa ay noqotay dalkii ugu horeeyay ee qaaradda Afrika ee qaada jidka diidmada tooska ah ee reer galbeedka. Tanina waxay dhalisay markii xiriirka Faransa uu burburay oo aysan Burkina Faso taa beddelkeeda aysan raadsan Faransiis cusub, balse ay aamineen dahabkooda iyo weliba dalagga beerahooda ka baxa, taas oo keentay in dalkani uu noqdo mid isku filan isla markaana wax badan soo saara markaasina ka shaqeeya dhinacyo kala duwan oo kaabayaasha dhaqaalaha ah, iyadoo markaasi dalka Burkina Faso markaan dhaqaalihiisu uu kor u kacay 5.3%. Gudaha dalka Tanzania waxaa ka socoto arrin kale oo yaab leh. Istiraatiijiyad cusub ayayna la timiday madaxweynaha dalkaasi ee dib loo doortay Samia Suluhu Hassan, taas oo dhalisay hadalhayn weyn oo ku aadan habka iyo weliba dhaqdhaqaaqa cusub oo ay sameynayso Samia Suluhu Hassan. Madaxweynaha dalka Tanzania
Tanzania waxa ay qaaday waddo gabi ahaanba ka duwan tan Burkina Faso, halkii ay ka go'i lahayd saaxiibada dibadda isla markaana ay ka soo horjeesan lahayd dowladaha reer galbeedka. Waxa ay soo dhaweysatay dhammaan awoodaha waaweyn, iyadoo Tanzania maanta ay noqotay dal ay ku hardamayaan awoodaha ugu waaweyn caalamka sida dalka Ruushka, Shiinaha iyo weliba Mareykanka. Haddaba maxaa ka dhalanaya istiraatiijiyadan cusub oo ay la timiday madaxweynaha dalka Tanzania? Ganacsiga Ruushka iyo Tanzania kala dhexeeya ayaa gaaray lacag lagu qiyaasay 307 milyan oo dollar. Sidaa darteed, booqashada Moscow ma aysan ahayn oo kaliya in Tanzania ay si buuxda markaasi u gashay gacanta Ruushka, waa sida hadalka loo dhigay, balse waxay ahayd astaan diblomaasiyadeed oo ka dhaxaysa labada dal. Marka dalkani uu leeyahay baa la yiri 3 saaxiibo oo ku tartamaya sida Ruushka, Shiinaha iyo weliba Mareykanka, dalku waxa uu helayaa awoodda wada hadalka. Qofna ma awoodo inuu shuruud adag u yeeriyo, sababtoo ah waxa uu helayaa dooq kale. Dalka Shiinaha ayaa Tanzania ka saacidaya mashruuc tareen oo qiimihiisu ku kacayo 2.7 bilyan oo dollar oo markaasi laga hirgelinayo gudaha dalkaasi, iyadoo Shiinuhu u ballan qaaday in markaasi mashruucan lacagta ku bixayso uu qaadanayo, isla markaana Tanzania ay markaasi ku shiraakobayaan mashruucan laga hirgelinayo dalkaasi. Isbuucan waxa uu muujiyay in qaaradda Afrika aysan ahayn madal kaliya ay ku hardamaan awoodaha caalamka, balse ay tahay qaarad awood u leh inay doorato jidkeeda. Haddii Burkina Faso ay sii wado korriinka dhaqaale, isla markaana ay sii kordhiso wax soo saarkeeda dahabka ah, sidoo kalena ay ilaashato amnigeeda, waxay noqon doontaa tusaalaha ay raacaan wadamo badan oo Afrikaan ah oo markaasi doonaya inay ka baxaan shuruudaha ay u yeerinayaan dowladaha reer galbeedku. Iyadoo dhowaan madaxweynaha dalka Burkina Faso si weyn u weeraray dalal badan oo ay ka mid yihiin Khaliijka iyo Carabta, waxa uuna ku tilmaamay in markaasi ay yihiin kuwa danaystayaal ah oo faafinaya markaasi ayaga waxyaabo u gaara iyo afkaartooda si markaasi ay u maamulaan dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika. Waxa uu tusaale u soo qaatay sida dalka Imaaraadku markaasi faragelinta weyn ugu hayo dalka Mali, isaga oo saameyn weyn ku leh sidoo kalena taageero siiya kooxaha gooni goosadka ee Turaaga ah ee markaasi ka dagaalama waqooyiga dalka Mali. Waxa uu sidoo kale Imaaraadku saameyn ku yeeshay dowlado badan oo ay ka mid yihiin dalka Suudaan, iyadoo maanta uu ka dagaalamayo dalkaasi isla markaana uu saacidayo maleeshiyaadka RSF-ta ee ka soo horjeeda dowladda Suudaan. Qaaradda Afrika waxa ay markaani wajahaysaa wajiyo kala duwan, iyadoo cabsi xoogan laga qabo dagaal xoogan oo dhexmara dalalka Masar iyo Itoobiya kadib markii dalka Masar ee dowladda Imaaraadka iyo dowladaha badan oo ay ka mid yihiin dowladda Sacuudigu ay u soo jeedisay in ciidamo badan oo masaariyaha la geeyo dalka Yemen si ay ula dagaalamaan kooxaha Xuutiyiinta ee markaasi ku sugan dalkaasi Yemen. Dalka Masar ayaana iska diiday qorshahan markaasi loo soo bandhigay ee ah in ciidamadiisu ay la dagaalamaan kooxaha Xuutiyiinta. Dalka Sacuudiga ayaana ku hanjabay in dalka Masar uu ka shalayn doono waxyaabaha uu sameynayo iyo markaasi amar diidooyinka uu ku dhaqaaqayo. Waxa uuna heshiis qarsoodiyaha la galay dalka Itoobiya, isaga oo dalka Itoobiya u soo jeediyay in dhaqaale badan uu siinayo si markaasi biyo xireeno tiro beel ah uu uga dhiso webiga Niil, gaar ahaan dhinaca Masar, si ay Masar u weyso biyo nadiif ah oo dadkeedu helaan, maadaama dalka Masar ay si weyn ugu tiirsan tahay biyaha Niilka. Iyadoo horeyba markaasi dalka Masar iyo Itoobiya ay uga dhaxaysay colaado dhinaca waliba biyaha Niilka ah, iyadoo dhibaatooyinka iyo xurgufta diblomaasiyadeed ee labada dal dhex martay uu keenay biyo xireenka cusub ee markaasi Itoobiya ay ka dhistay xuduudda dhanka waqooyi ee dalkaasi. Xaaladda geeska Afrika ayaana markaani isu rogtay dhinaca kale, iyadoo laga cabsi qabo dagaalo badan oo dhex mara dhanka Itoobiya, Suudaan iyo weliba Masar. Fadlan daawade, haddii aad halkan la soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan.